سائلكن كله إنه قشيقة شيخنا الفاضل وقبر ويان waxay tiri sheekh wadankii ayaan ka imiday dhowaan nin baanan kaga imiday bay tiri aanu ku heshinay inaan isguursanno ballan aad iyo aad u adag oo dhaarana waan kaga imiday bay tiri ninkaasi hadda markaan halkan imiday oo waxoogaa mataqaanaa aan joogay waxaa ii soo baxday bay tiri inaan 5 sannadood aan ku qaadanayo baasaboorkan maraykanka marka 5 sanno markaan qaatay kadib ayaan mataqaanaa ninkaygii keeni karaa bay tiri marka waddadu aad iyo aad u adag haddaan safrana dee muxrim la'aan bay noqonaysaa inaan safro ninkaana ballan adag iyo dhaar baa naga dhexeeya bay tiri arrinta ayada aqoonta ayaan ugu jiraa in aan ka baxana waan jeclahay bay tiri laakiin inaan dembi kaga baxo ma rabo oo nafsi hadhow igu yimaado nafsiga guurkuna ma hadha bay tiri oo u socdaa marka waxay leedahay maxaad igula talinayd arrinta aqoonta igu jirtaa meher igu xiran weli ma jira bay tiri laakiin ballan adag baa igu xiran maxaad igula talinayd maxaan sameeyaa bay leedahay tafadal mashkuuran waa maajura الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سائلتي كلمة معها وغريب وعجيب وحاول أن إلا ويا أركو لو أنا قاطع بقلال قبضات بي أرنتها كل عبي قورت أيسود له فيان قبض الله ينهشة قور الله قورت أيسود له فيسو in maxaa la yidhahdaa fartan laga soo xidho qaybo ka mida waalidkuba ma ogaba oo aabbihii oo indhihiisu ay 5 yihiin oo ama halkan jooga ama xaggaa jooga ayaad maqlaysaa gabadhii waaba la mehersaday oo waa la meher xabay oo waa la masaafaystay dad baa rag baanu aragnay gabdhahooda yaryarkay u yimaadeen nin baaba qababa arrintaasi aad bay marka gabdhuhu waxaa wanaagsan horta inay ilaahay ka baqaan tabaaraka wa tacaala oo horta arrintaasi ay si tartiiba ooga fiirsadaan oo ayna xamaasad qaadin guurkoodana ayna qaab xaaraana ku dhisin waayo nabi sal ly slam wuxuu leeyahay ayuma imra'atin nukixat bigayri waliyiha fanikaaxuhaa baatil gabadha weli la'aan la guuriyay nikaaxeedu waxba kama jiraan waxba kama jiro la shuruudo un baa laga soo reebayaa haddii unay dhaa waxbaa ka jira waa in shuruudo kale loo eegay laakiin asalka midaan ka hadlayna waa midaas wey taa horteed waxaa laga yaabaa gabadhan hadda maynan sheegin inuu aabbaha siiyey oo maxaa la mayna sheegin inkastoo tiri weli ismaanna guursanin waxaa laga yaabaa heshiis labadooda bes ay tahay hadday kuwana wayba la guursadaaba taa haddii aan ka soo gudbo gabadha waxaan dhihi lahaa horta maraykan baa joogtaa saan isleeyahay aanta su-aasha ka fahmay saatiri 5 sano unbaan baasaboor ku qaadan kara ballantuna waa shay adag wey meeshaad u soo socotayna maadan garanaynin waxa ay tahay ama waad garanaysay waa iska soo indha adeegtay hadda waxaan ku dhihi lahaa horta walaalka ku qanci duruuftu inay adag tahay waxaa laga yaabaa 5 sano dambe inaad adigu joogto oo aabad reer la'aan joogto inay adkaan karto marka horta walaalka ku qanciyo waxaad dhahdaa iseena cafi xoogaad adu waa shaqaysatay oo ama wadan baa joogtaa wax laga qaateena asagoo Afrika laga yaabaa inuu isleeyahay waa way ku dhaantay wax u dir kadibna waxaad dhahdaa isoo cafiyo adiguna gabdhaha iga wanaagsan baa halkaa joogay Allah ku barakeeyo anigana meelahaygan baan wax jajafanayaa waxa weeyaan waa midaas weeye wala yeelayaa insha Allah tacaala haddii ilaahay raali ka noqdo hadday intaasi ay ka tagi kari weydo oo walaalkii uu kugu dhego waxay u khuduucaysaa inuu waalidkii kuu ogol yahay iyo in kale hadduu waalidka kuu diido khalaas ayada halkaasaad ku istoob garaynaysaa hadday kuu ogolaadaan waalidkiina waxaaba uun joogto oo mas'alo muhiima ah anugu inaanan maxram la'aan kuuba imaanaynin mas'alo sharci ah iyo taagan mas'alo sharci ah oo kale ayaa iyo taagan sabaradeed jawaabteedu waxaa way kula talinayaa ka faa'iidayso waqtigaaga billahi tabaaraka wa tacaala walaalkana oga faa'iiday waqtigana ha ka dhuminine waxaad dhahdaa walaal tawakkal cala allah
أدوغنا محالي واحد أدري كرت أدري بإذن الله تبارك وتعالى والله أعلم.